عقاشة مدح dhaqameedka salaadiinta waxgaradka iyo xildhibaanada qaar ka mid ah beelweynta degan gobolada Murudujeex Saaxil iyo Togdheer ayaa kulan warbaahineed ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay ugu baaqeen bulshada deegaanada ku kala dhaqan ee ay mas'uuliyiinta u yihiin inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta isla markaana ay ku dhiiradaan yar iyo weynba sidii ay u qaadan lahaayeen iyagoo guud ahaanba mujtamaca Soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta madax dhaqameedka salaadiinta iyo waxgaradka halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantoodba iska daba maray gubaabada ay u soo jeedinayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi ugu horeyna waxa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay qaar kamida madax dhaqameedkaasi oo ay kamid ahaayeen Chief Caaqil Xasan Axmed Guuleed Xasan Xuseen Yaasiin Cali Yaasiin Diini iyo Caaqil Ibraahim Cali Boorle kuwaasi oo kamid ah cuqaasha deegaanadaasi inaanu wacyigelin ku sameeyno dadkayga daga gobolada Togdheer Hargeysa iyo Barbaraba sidii ay u qaadan lahaayeen kaararka doorashada kaararkan loo diyaar garoobayo dalka dhan uu diyaar garoobayo sida awgeed waxa weeye waxaan leenahay dadweynaha kaararka qaata waxa weeyaan waxaan ku gubaabinayaa dhalinyarta islaamaha odayaasha wixii aan qaadan kaad amba waqtigu hore uga dhacay amba soo qaan-gaaray dhammaan waxaan ku gubaabinayaa inay qaataan kaararka taasoo sababtu ay noqotay awal waxa lagu dagaalami jiray baasuuke iyo seven iminka halkii sevenka waxaa galay kaarkii dagaalkaad galaysaa kaarkaaga wad qaadanaysaa waad ku ridaysaa kaarka foodka dadka loo doonaya inay qaataan waa qaangaadhka iyo ninkii uu ka lumay iyo kaan hore u qaadanay saddexdaasi iyo ka doonaya in loo bedelo matalan adoo halkan joogaa tababarcay ugu bedelo waa lagu bedelaya intaasaa ka qayb galaysa haddii lagu kuuleeyahay kaar qaadashada waxaanu ku baraarujinaynaa beelweynta dhalinyarada dumarka hablaha intaba waxaanu ku baraarujinaynaa in ay qaataan kaararkooda waxaynu leenahay si aynu u baraarujino waqtigiina uu soo dhow yahay inay kaarashii qaataan ciddii aan isdiiwaangelin lana wacyigeliyo waayo waxa weeyaan kaarhkaasi waxa weeyaan wuxuu kuu yahay hadhow toolo wixii masiirka adigu aad maaragtay qofkii aad doonaysa aad ugu ridi lahayd geesta kalena Suldaan Umar Ibraahim Muhammad iyo sida oo kale Suldaan Sidiiq Suldaan Jaamac Cismaan ayaa halkaasi ka hadlay weeyaan halkan waxaanu isugu nimi inaanu guwaabino beelweynta halkan magaceeda laga sheegay qaranka Soomaaliland wuxuu galay xilli diiwaangelintaas hawshaasoo olole laga bilaabay qaab qabiil qaab jirib qaab qoys iyo wax kasta oo ay dadku ku guwaabinayaan bulshadoodana loo diyaar garoobay lana wado ayaamaha socotay iminkana bilow tahay oo 28 bishan aynu ku jiro kaararkii la bilaabayo si loo qaato maadaama ay beeshu beel ballaaran tahay gobollo kala duwanna ay degan tahay oo ilaa Ethiopia ay joogto madaxdii dhaqankana ay Hargeysa iminka joogaan aanay suurtagal lahayn in ay tuulo walba iyo goob walba tagaan inuu warbaahinta u marino waxaanu leenahay markaa qaata kaararka sida ugu dhaqsaha badan waxa aynu doonayno ama kaarka shaqadiisa waxaynu ku qaban lahayn in Ilaahay uu soo saari doono laakiin muhiimaddu waa in horta ay dadku qaataan kaararka maadaama oo qofku codkiisa uu ku dooranayo ciduu raali ka yahay isagu laakiin muhiimaddu horta waxa weeyaan inaanu qofku ayna dadku kaarka aanay qaadan waayin si gaar ahaaneed iyo si guudba in dhammaan shacbiga reer Soomaaliland ay kaarka maanta dhalinyaro iyo waayeel haween intuba ay ka qayb qaataan diiwaangelinta bilaamaysa